maanta waxaynu eegaynaa cashirkeennii toddobaad ee ku saabsanaa projectkeennii 5 dabaq ahaa aynu hore u soo wadnay. cashirkeenna waxaa maanta ku saabsan yahay analyze. marka horeysa waxaynu tegaynaa analyze markaynu ku dhufanno waxaanu ka dooranaynaa set active degree. markaanu ka dooranno taasaynu ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay full 3D. okay baynu odhanaynaa. analyze baynu ku noqonaynaa. check model baynu tegaynaa. select all baynu odhanaynaa. okay baynu odhanaynaa. waynu yara sugaynaa, xoogay bay yara qaadanaysaa. wuu jeegareeyey, wuxuu yidhi wax khaladaad inaguma hayo. khaladaadka ugu muhiimsanna waxa weeye beamka iyo columnka, laakiin hadduu islaabka khaladaadka kuu qabto muhiimad taasa ma laha. waynu iska khaldaynaa, waa ku noqonaynaa. waxaynu tegaynaa analyze, waxaynu tegaynaa run analysis ama F5 baynu ka taabanaynaa keyboardkeenna. waynu yara sugaynaa, waqti bay qaadanaysaa. sagaashan iyo 8 buu marayaa. checking beamka inuu wada mar labaad buu check garaynayaa. wuu dhameeyay. beamka muhiimadeena koowaad waxa weeye inaynu eegaano SFD-geena ama shear force diagram-keena, sidoo kale bending moment diagram ama BMD ku ogaan karnaa sawirkeena ama e-tab-keena. jawaabtuna waxa weeye haa, waynu ku ogaan karnaa. waxaanu tegaynaa elevationka. inagoo halkan ay elevation ku qoran tahay dooranayna. elevationka aynu doonaynu ka tegaynaa. imika elevation 3 baynu tegaynaa. elevation 3 markaynu tagno iska xidhaynaa. waxaynu tegaynaa ku xiga waa display. markaynu tagno waxa weeye force diagram-kaasinu tegaynaa. force or stress diagram-kaasinu tegaynaa. markaynu tagno waxaynu ku xijinaynaa frame ama beer ama splendor. markaynu ku dhufanno waxaynu tegaynaa halkan baynu ka dhiganaynaa live load ama loadkaynu doonno. kun kulli wayna wada available. ersquag y win load egas win load y kulli wayna wada available. markaa imika waxaynu tegaynaa tusaale ahaan live load markaynu tabtaa u tagno halkan haddaba waxaa inoo yaala laba wax. imika haddaynu rabno SFD ama shear diagram inaynu eegno, halkan waxaa inoo yaala shear 22 iyo shear 33. sidoo kale halkan momentiga waxaa inoo yaala moment 22 iyo moment 33. haddaba maxay kala yihiin baynu ogaanaynaa moment 22 iyo shear 22 ama shear 33 iyo moment 33. aynu eegno sawirkeennan. markaynu eegno waxaynu ognahay inay halkaas y direction noo yahay dacalkaasu, dacalkanna uu x direction noo yahay, sidanna uu z direction noogu yahay. laakiin imika waxaa inoo muuqda x directionka iyo y directionka, labada direction baynu haysanaa. haddaba xoog halkaas kaga soo dhacayaa. tusaale halka xoog kaga soo dhaca ama beamka ama columnka. markuu halkaa kaga soo dhaco, hadduu deflection sameynayo sidan buu deflection ku noqonaya. shape sidaas uu noqonaya, yara qallooca oo jiifa. marka momentigan wuxuu noqonayaa sidii wax dacalka sadha oo kale u qalloocsamaya. haddii aynu eegno sawirkeennan kale, agasteena number 1 baynu qaadanay baan leeyahay, weydeena number 2 baynu qaadanay, sadheena number 3 baynu qaadanay. marka xoogeen wuxuu soo dhacayay markuu sidan oo kale deflection u sameeyo, tabtaas oo kale u qalloocsamo sidii wax xagga sadha kale oo kale soo qabanaya uu noqonayaa. markaanu dib ugu noqono, markaas sadhowna number 3 baynu noqotay. markaanu dib ugu noqono e-tab-keena, markaan dib ugu noqono sawirkeena, uu shape-kaas oo kale inoo sameeyo xaggii sadha oo kale shape inoogu sameeyo deflection ah. momentigan markaa waxay noo noqonaysaa dacalka sadha. momentigan maadaama dacalka sadha inoo noqotay, sadhay maxaad noo tahay? sadha waxay inoo tahay 3. haddaba aynu ku noqonay e-tab-keennii. momentiga markastoo aad moment dooranaysid ama bending moment diagram aad doonaysid, waxaad qaadanaysaa moment 33. aynu shearka ugu soo noqono. intayna shearka ku noqoto aynu eegno momentigan. apply baynu odhanaynaa. sawirkeena momentiga kaasoo caadi isagoo noogu sawiran bending moment diagram-keennii isagoo caadi noogu sawiran. dhibaatada koowaad ee jirta halkan ay nagu soo baxday waxaa weeye xaggii hoose ay noo ahayd inay minus noo noqoto plus bay noo tahay. xaggii sare ay ahayd inay noo noqoto plusna minus bay noo tahay. aynu soo yaro dhaweysano waliba si aynu si kaleera ugu aragno.
tacalkeena hoose waa inoo plus, tacalkeena sarena waa inoo minus. haddaba maxaynu sameynaynaa markuu tabtaasoo kale inaga noqdo? waxaynu tegaynaa option markaynu tagno halkan baynu imanaynaa moment diagram on tension side, waxaynu ku dhufanaynaa si automatic isaga isugu keen bedelay. aynu soo yaro dhaweysano qaybteena hoose waa inoo minus, qaybteena sarena waa inoo plus. markaynu inta ka gudubno aynu sawirkeena dib ugu noqono example-keena markaynu dib ugu noqono beamkeena shear force-ku waxa uu kaga soo dhacayaa xagga sare. maadaama uu beamkeena shear force-ku xagga sare kaga soo dhacayo, shear force-ka waxaynu u qaadanaynaa y sida inooga muuqata sawirkan aynu arkayno. y waxay inoo tahay 2, marka 2 baynu qaadanaynaa. aynu dib ugu noqonay taabkeeni aynu shearkeena isagana aynu waa shear 2 shearkeena oo kan caadi isugu kan sawiraysna. halkaas aynu ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaanu isugu iman doono video kan